dhibaatadii halkan ka dhacday waxay sababtay in dad badan ay halkan ku nafwaayaan dad badan in ay ku dhaawacmaan waxaan u malaynayaa dadka labadii nin dhinaca walaalaha ahaa idinku colaadda sababteene laakiin dadka tacsidiisa waxa la dadka kale colaadda ka naxaya in laga tacsiyadeeyo haddana mar haddii deegaankan ay dhibaatadaasi ka dhacday waanu ka tacsiyadeynaynaa qoysaskoodii ay ka baxeen dhibaatadaa dhacday dadkii dhaawacmayna waxaynu leenahay ilaahay caafimaad ka hawsiyaadiyo marka intaa laga yimaado doorkii hore halkan aynu ku wada hadalnayoo colaadaasi waa tii naga afkooday 7 bilood 8 bilood baa nabadgelyo lagu jiray waa la soo kabtay deegaamadii waa la isugu soo noqday haddana maalintii dhawata waa tan shaqaaqada dib u soo noqotay annagu marka arrintaan u soconnaa waxa weeye horta waa kow waa marka ugu horreysa in ay dhacdo xabad joojin rasmi ah oo labadiina dhinac cidina aanay colaad damba hurin qodobka labaad maanta laga bilaabo labadiina beelood meel ay wada degan tihiin iyo meel ay kala degan tihiinba tan waa wada degtaan dabataag waa wada degtaan dharkeen waa wada degtaan meelo kale waa wada degtaan ciidan urursan oo labadiina beelood ka tirsanine inaanu jireynina ciidamadiina aa soo ururiseen reerahoodii iyo danahoodii in ay qabtaan wixii maanta ka dambeeya ciidankaa urursan iyo ciidankaa qaranka halkaa la yimi way iska hor imanayaan iska hor imaantinkooda wixii ka dhex dhacana hadday idinka tahayna idinkaa mas-uuliyaddiida qaadaya hadday bahararsamo tahayna iyagaa qaadaya waxaynu soconnaa u doonaynaa inaynu nabad hirgelino si nabad loo hirgeliyo suuragal maaha macquulna maaha lamana qaadan karayo in ciidan urursani uu meel fadhiyo ciidan urursan oo meel fadhiya macnaheedu waxa weeye ujeeddo dagaal iyo ujeeddo diilaan buu meesha u jooga ayagana waanu soo sheegnay idinkana waanu idin sheegnay ciidankiinasina wuu kala waa la kala dirayaa xukuumadduna dhaxana go-aankaasay soo gaadhay guddiga nabadgelyada ee gobolka aagga bari ciidamada jooga biliiska iyo badhasaabka badhasaab ku-xigeenka maayarka degmada waxaa la wada go-aansaday ciidankaasina inuu sidaa ku kala burburo qodobka soo hadhay marka waxa weeye waa yeelka xaajaqaadka oo ah beeshana nimanka la fadhino hadduu caaqil yahay iyo haddii uu codkar yahay iyo hadduu culimo yahay